Somaliland oo dhan jiritaankeeda iyo si socodkeeda iyo inta isku hadhay kala dhaqaaqeedu wuxuu ku xidhan yahay isbedel dalka ka dhaca diyaaradii uu Burco raacay madaxweynuhu inuu ku hanjabayay Burco inuu salaadiintii maxkamadda geeyo wararkii nabadgelyada abuuray ee doorashada soo dhaweeyay warka waxa weeye waa inta joogtaanaha si kala tagto weeye wixii aynu ka cabanaynay iyo wixii aynu doonaynayba maanta waxa ku soo ururtay codbixinta maanta la bixinayo halkii aynu ka raadin lahayn awoodda dalkan ku yeelanaynaa waxa ku xidhan tahay maanta codka aynu bixinaa intuu leekaado jumhuurkii awdal deganaa uu isku raacsan yahay isbedel su-aashu waxay ka taagan tahay cod intee leeg iyanu ku codayn doonaa taasina waa mid ku xidhan dhammaanteen olole wuu soo dhammaaday laakiin intay noo hadhay waa intii ugu adkayd haddana saddexda cisho waa saddexda cisho ee la rabo in aqal walba la isgaadho guri qof la tiriyo inta kaadh haysata la yidhaha kaadhadhka soo dhawaysta la yidhaahdo diyaargarooba inaad codaysaan haddii la odhan jiray ma codeeyaan reer awdal iyo gobollada galbeedku maanta codkeennu inuu muuqdo ayaa muhiima 181 kun cod yar maaha codka maanta aynu ku codayno wuxuu geli doonaa taariikh cusub wuxuuna dhigi doonaa cod lagu xisaabtamo oo lagula xisaabtamo awoodda gobolkani ku yeelanayo dowladnimada Soomaaliland lafteeda cod lagula xisaabtami karo horumarka laga rabo gobolka iyo deeqaha caalamiga ah iyo noqon doonaa guud ahaan Somaliland waxay noqon kartaa Switzerland dal qaniye weysa Cabdiraxmaan sheegay waxay u baahan tahay kaliya waa maamul degan nabadgelyo ahaan iyo siyaasad ahaan oo lagu dhaqo nidaam dawli ah dastuurkan dhiganay maxma qawaaniinta dalku way degan yihiin in la abalay gareeyo oo la fuliyo u baahan yahay cidii shaqayn lahayd iyo aqoontii shaqayn lahayd maanta Somaliland min sool ilaa awdal waa leenahay aqoontii wax soo saar sameyn lahayd aqoontii horumar sameyn lahayd waxa loo baahan yahay waxa weeye horta marka ugu horeysa muwaafaqo iyo wadajir Somaliland 7 sanadood iyadoo meel fiican maraysay waxa dhacay in lagu kala tagay oo hogaankii dalku uu dalkii furfuray oo kala kaxeeyay Somaliland qayb baa maqan maanta inta joogto qudheeda ayaa isku haynteedu maanta ku xidhan tahay isbedel dalka ka dhaca oo aad arkayseen diyaaradii uu Burco raacay madaxweynuhu inuu ku hanjabayay Burco inuu salaadiintii maxkamadda geeyo wararkii nabadgelyada abuuray ee doorashada soo dhaweeyay warka waxa weeye waa inta joogtaanaha si kala tagto weeye markaas sidaas ay ugu xidhan tahay codka maanta la bixinaya Somaliland oo dhan jiritaankeeda iyo si socodkeeda iyo inta isku hadhay kala dhaqaaqeedu wuxuu ku xidhan yahay isbedel dalka ka dhaca muuse intuu tari karay uu tariyay taladiisii halkaas la maraya isaga farinta loo diray waxay noqonaysaa madaxweyne doorashadood qabato si sharaf leh waqtigaaga ku gabagabayso sidii loo wareejin jiray inaad u wareejiso ayaa taariikh wanaagsan ku gali doonta oo lagu amaani doonaa oo la oran doona madaxweynihii hore saas u yeelay warku wuxuu ku soo kooban yahay war codka aynu bixino isbedelkana kaga dhabayno sanduuqana ka muuqato fariinta awdalna la xoojiyaa ma codaysaan codeeyada waa in lagu celceliyaa aqal walbana la gaarsiiyaa